weli waxaan ku dhex jirnaa excel functions maanta waxaan baranaynaa concatenate, count, counter, count blank, count if, count ifs dhammaan waan arki doonaa tusaalahooda insha allah. Waxaan ku horumaraynaa concatenate waxaa loola jeedaa tusaalaan labada magac saa ujeedid hadda waxay ku kala qoran yihiin laba meel. Haddii labada magac aad inaad isku geysid waxaa isticmaali doontaa functionka la dhahayo concatenate. Sida loo isticmaalaa marka aan sameyno equal ayaad leedahay waxaa qoraysaa concatenate waa kan asaga ku soo baxay con markaa qorto ku soo baxay concatenate laba mar klikisi then fi halkan leeg akhri mar alla markaa function isticmaalaysid asigaa ku tilmaamayo wuxuu ku leeyahay text1 ayaa dooranaysa text1 waxaa ka dhigi doonaa magacaan ka dhigi doonaa comma ayaan leeyahay kadib wuxuu isiin doonaa text2na magacaan waay kadib internet ah soo jeed labada magac hadda waa la isku geeyay oo markaasi hal meel Ahmed Nuur waa hal magac markaasi oo ayaa hal meel la isku geeyay soo hadda labada magac space ma laha space daaro in aan sameeyo maxaa sameynaa laba mar kliksi function ka soo saaro kadib halkaan waxaad gelinaysaa space oo markaasi koorka marka space waxa la gelinayo waxaa asmeynaysaa quotation mark furaysa oo laba xabbe space u dhexeysinaysa labada quotation mark double quotation waaye space u dhexeysi kadib comma dhe marka kadib enter dhe hadwa ka labada magac waxa loo sameeyay space loo sameeyay hadii midkaan kale aan tusaalaha marka ku celino waxaan dhahnay equal kadib waxaan qoraysaa con bisa qoraysaa wuxuu ku soo qoranaa concatenate kadib maxaa leedahay text1 ayaa dooranaysa text1 hadda kana ka rabnaa comma ayaad leedahay text2 inta dooran ka hor hadii laba magac aad rabid inaad markaasi space u samaysid waxaa sameynaysaa double quotation aad furaysaa quotation naftiisa space u dhexeysinaysaa quotationka asaga space ayaa loo dhexeysinaya then maxaa leedahay comma kadib magac kala dooranaysaa then waxaa leedahay enter intaas waay kawaasna fahna umalena haddii aad rabtid inaad samaysid like tusaale inaad samaysid like aadan iyo faarax camal sida loo sameeyaa waxaa samaynaysaa equal leedahay con markaa qorti soo qabso then waxaad dooranaysaa textka koowaad comma ayaan leeyahay kadib waxaan furaa quotation mark double quotation aan furaya kadib halkan waxaan qori doonaa iyo ayaan qorayaa iyo double quotation ka fur mar kale kadib comma dheh kadib magac kala dooro waxaan ka rabaa aadan iyo faarax inuu ii soo qoro then enter dhe marka saa ujeedid aadan iyo faarax laakiin iyadii aadan ayuu ku dhejiyay laba mar kale kliksi aan fiirino comma then double quotation waxay kan space then enter dhe okay marka dabada dhinaca space waa inay siisaa aadan iyo faarax waka sidaas oo sameynaysaa concatenate marka dhahdid then waxaa sameynaysaa magac koowaad dooro comma dhe double quotation markaa furtid iyadoo intaada qorin ka hor space yar siinaysaa iyadoo qoraysa iyo markaa qorto space yar double quotation comma then sidaas oo sameynaysaa okay hadda waxaan aragnay concatenate koox ku saabsan okay hadda waxaan arkaynaa waxa loo isticmaalo count waxay tirisaa ama ay xisaabisaa cell kasta oo markaas uu number ku jiro qaabka loo isticmaalo marka equal leedahay count ayaad leedahay count markaa soo qabsatid oo marka kliksi then dooro marka qaybaha numberka dooranayna then enter lena soo jeedo 6 iyo markaas 1 2 3 4 5 6 qaabkaas loo isticmaalo okay aan ku tijaabino in ay waadiska ama textka qoraalka ay xisaabiso count aan dhahno then soo qabso kadib textka aan bal aan fiirino inuu tirinayo cellski 0 ayuu leeyahay mujid marka count noocaas loo isticmaalo okay counter ayaa ku soo haray counter number iyo markaas waa u isticmaal kartaa qoraal labadaba equal leedahay kadib counter ayaad qoraysaa counter markaas soo qabsatid bal aan ku fiirino in magacyadan ay tiriyaan magacyada macnaha textka waa ka 6 ayuu leeyahay okay then haddii mixer laga dhigo tusaale ahaan kanaan la tirayo equal aan dhaho counter markaan dhaho then bal aan ku dayo in numberadan textka ay soo jeedid labada markay ku shaqeyso labada dhinacba way ku shaqeysaa soo waxaan aragnay counter iyo count wax la isticmaalo count blank waxa la isticmaalo count blankaas wuxuu xisaabiyaa cell kasta oo banaan ama meel kasta oo banaan ayuu xisaabiyaa equal leedahay count blank aan soo qabsanaysaa then haddii aan doorto qoraalka numberadan wax ka banaan ma jiraan 0 ayuu dhihi doonaa haddii aan ka baneeyo hal xabo wuxuu meesha dhigi doonaa hal xabo aan ka baneeyo wuxuu dhihi doonaa hal meel ka banaan ayuu leeyahay soo jeedid hal aan baneeyo hal uu soo qoray okay saas waa count blankana idan halkaas waan ku aragnay okay maxaa noo haray count if baa kale isticmaala asoo equal leedahay count then if count if soo qabso kadib asaga ku siinaa wuxuu leeyahay range inaan count if ku sameeyo range-gaan aan rabaa inaan ku sameeyo then comma ayaan leeyahay kadib wuxuu siin doonaa criteria dooro criteria ayaan dooran doonaa 6 aan dooran doonaa soo enter aan leeyahay soo wuxuu ii sheegaa numberka 6 inta mar uu soo laabtay wuxuu soo laabtay 3 mar soo ujeedin
saddex mar ayuu soo laabtay count if saasoo isticmaalaysaa. Okay, waxaa noo haray count ifs. Count ifs qaabka loo isticmaalaa equal leedahay count ifs, then count ifs wuxuu ku leeyahay marka range dooru ku leeyahay marka hore. Mar alla markaa function qorto asagaa kuu sheegaya halka wax ka bilaabi lahayd. Range aan dooranayna, range aan doorto oo markaasi oo nambarada ah, kadib comma aan dhaho. Kadib wuxuu leeyahay criteria noocee rabtaa, number noocee raadinaysaa ama criteria. Waxaan rabaa number 6 inaan raadin rabaa. Comma ayaan leeyahay. Then okay, count if meesha aan ka dhigo count if s aan ku daro, then hadda now wuu soo qaban doonaa. Okay, then criteria range 2 ayuu i rabaa. Criteria range 2 waxa ii noqon doonaa magacyadaan ka dhigayaa. Comma ayaan leeyahay. Kadib criteria aan rabana magacaan cali aan ka dhigaa. Marka waxaan rabaa inaan isla helo inta mar uu cali 60 ay soo laabteen aan rabaa inaan helo. Inta la dhahay marka saddex mar uu ii sheegay ujeedid. Wuxuu soo laabtay cali saddex mar oo 60 wato iyo cali oo markaas 60 wato ayaa waxaa soo laabtay saddex mar. So count if saas loo isticmaalaa. Marka waxay kula bedelayeen count if iyo count ifs. Count if wuxuu leeyahay hal range iyo hal criteria base. Laakiin count ifs waa laba range iyo laba criteria. Haddana waxaan usoo bir cashirkaas socdaan. Wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.